gabadhu wiilka la socda inuu guursan doono oo run u sheegayo maxay ku dareemi kartaa qodobkan waa muhiim gabdhahan uu khaas u yahay waa muhiim gabadhina ogaatid waan ogahay wiil inay isjeceshiin wada socotaan guur iska ballan qaadeen xaqiiqo weeye bulshada wax walba laga helayaa ogow wiilka hadduu ku yiraahdo isguursanayna qaali naa kalena ma guursanayo mana rabo hadduu sidaa ku leeyahay waad isjeceshiin ogow calaamada waxaa jira arrinta tusaya inuu run sheegay calaamadahan haddaad ka aragtid wiilkaas ogow waa wiilku jecel oo rabo inuu ku guursado ee iska sii dayn nin la'aan baa adduunka jirte yacni nin maxaan ka wadaa nin wanaagsan baa ka wadaa way wada taagtaageen dee wax dhaldhalay kara هادي واحد الله يقول واجهه الله بركيه لكن واحد قال نينكي من هادي إلهي الرجال قوامون على النساء وإلهي كتل ما برق رجال لا تلهيهم تجارة وإلهي كتل ما رق أهابان قورم يدي لكن رق وحكوا سيئة جنا معسكر رق متريال واسكر دومين الله عافي ما دي مركب قبل يدار تويلك أما كل شيء كستا أما كتشعل calaamadaha run buu ka sheegay calaamad dadku aragtid run buu sheegay oo way kurso gurkiisuna waa run ay u dul qaado iska daa khiyaanada kale iyo mid hoos ka wad iyo mid kale inaan niyeysatid iska daa adigana kuma fiican iska ma fiican mustaqbalkaada aakhiro iyo kaada adduunyada ma fiicnad wala la qarxile nin laan ma jirto yani nin laan ma jirto nin wax dhalay karo oo ku taataaban karo nin baa qabalaya way jira laakiin xaqiiqadii ninnimada wixii ku sifoobay ninnimadu in la dhalo ma ahan la isguursado nin heelay wali bari ama dharkii ninka la qabo ma ahan noqdo ninnimadu waa mid xaqiiqo ah harjid iyo waxa weeye waqti iyo ixtiraam iyo qiyam waa rabo kiyaal iska jira marka rabo kiyaal la takaado de rag baad haysataa ilaa waa hawlo badan baa leedin inuu ku shubaya allah musta'an calaamadahan haddaad aragtid gabadh yahay oo wiilka aad ku aragtay ama ninka aad wada sheegaysaan la isticmaashaan ogo wiilka wuxuu jecel yahay adiga inuu ku guursado ee garo waxa weeye mid ugu horeysa inta badan wiilka aad jeceshiin ee runta ka sheegay inaad guursataan markuu sheekaynayo si guud buu sheekeeyaa tusaale annagu waxaan sameyn doonaa saasa yeeri doonaa daygood yani ma dhahayo anigu waxaan sameynaya kaliya ma hadlayo si guud ahaan buu hadlaya adigu kugu soo daraya noloshii qoyskii kugu soo daraya si wuxuu u hadlayaa jamac wadar u hadlaya wuxuu leeyahay saasaan sameynayna أساساً يري دونا مر الله نكون شاكين أمور قصدين وسناسة اسمه لكن طبعاً هنت كل حجرتان أيوة سوريا حس مركو حكلي وحنا سامين دونا يعني وحنا الله يسير الدولة نمو ضد بدن سوا وخليه وهي هذا الروح كترجمة يا قيس كادي يقيس كيسو كل ما يسكوي معضي بكورة يكادوك يا هذا أنا واحد يري دونا أنا أزوج ما يسوق سوق كلمة أو فعبا كتير نقاز على سؤال بصارا علامة سؤال بس مركز هدوء ورمسي جودة هنا أما وضرع أقول كاسيو هذا الكيس ملها بدني وارهم بناء كلوية أنت بدن ويل كأستعشين الدنيا إنه كجورسو قور درينا إنه نرش كل وذاقهم وسكوك حراه يعني مستقبل مركز ورمي أديك يأسوا سكوك حراه أسوي سوين الله أنا أدور صعون هالكاسن تجي دونا وحاس يجي دونا يعني أسوون يسوون بأستغل نلش يسا يكسب جريني يكبر حرية حرق بقوع لكن اسمه قرنا اسمه بين عكروية ويلك كتشعل الدنيا إنه كجور سده أنت بدن سمعة هذا ما صورة حمية ما تشعل إن ما قعد الله حمية ما قعد اللي بحره هدي اللي هو يا لقو عيارة ما تشعل أو صورة هذا الحمية أو لقو فضيحة ما تشعل هاي بل أدوك وعب صنيا أدوك حفظيا أدو الدنيا إن هذا عبوبين أدو الدنيا إن السمعة هذا تشوفته أدو الدنيا إن السيوق وشوسي وناكش سبحان الله نيك كتعل تعال في سو نبي هاي دنيا إنه كجورس جوركا وشليه وكوسني يا هنك شيء أنت بدل ما تعلى إن مقع على الصورة هذا اللحمي وكل الدتاس مقع على نوع عيار حتى أدو حتى عيب لا هاي مركز قاركو عيب هذا إن اللي أقاله أرنتاسي أي مارتي فافت ما تعرف أنت بدل مركو كل شيء كيسنا يو نينك كتعيد بورسن ربا قويس كيسو كشيكيا هو يديس هو يو أباي ساسواي هو يديس ساسواي قويس كيسو كشيكيا لكن هذا ثين قويس كيس كاقرين أيا أو قويس كيسي أفراد قويس كيسو كومي عن كل شيء أو وحبا الله مني
laakiin hadduu qoyskiisu ku faahfaahinayo aabbahay saas weeye hooyada sidaas weeye halkaasay degantay ama waqtigaasay dhimatay intaasayna dhashay hebel waaye saan u fiican yahay intaasa ka koobanay dadkeenu waa saa xag yacni isku kaa waadixinaya wey si aan kusoo dhawaatay hooyadiisu kaaga warramaya hooyo fiican wey taa uu kaaga warramaya marka inaad kusoo biirto noloshooda rabaa marka waa dhibaatada ka taagan qoysaska Soomaaliyeed ee maaragtay hooyooyinka marka qaarkood sodohayeen gabadha markii la dejiyo xumaanta in badan hadda gabadha sodohday qoyskii ka camarayaan kullee dhibaato ugu haysa Allah musta'an ilaa aan dumarka qaarkood gaareen waxay dhaheen haweenay ama yani nin hooyo leh maba guursanayaba war hooyada ma noosha iga tagay sii soco hooyada ma dhimat kan u fiican laakiin wuxuu Ilaahay qoran ba socon ila socon ninka ku jecel ee doonaya inuu ku guursado inta badan wuxuu ku wareystaa adiga iyo tilmaamaha ama dadku ku weydiinaya yani laana waa min mustaqbal doonay dadku ka warsanaya heblaaya bal iga warrama dadku yaqaana ama asxaabta ama walaalahaada kale ama reerkii guud ahaan ama dadku yaqaano ka wareysanaya gabadhaas ka warrama gabadhaas sidaas weey aduu ku sheegay ayagana kaaga ay ku wareystaan oo ku amaana ku caayimay ku amaana marka waa nin raadiya macluumaad adiga ku saabsan wuxuuna ka raadinay adiga naftaada ma yahay laan adigu marka isheegaysa adaa isamaanayahay dad kale ka raadinaya macluumaad si uu ogaado qofkan nolol in la wadaagto ma u qalo nin nolol raadinayo ninku meel gaar ah ma aha qoota la socdo taasi waa mid wuxuu kale dadka ka warsanaya sida uu nooshahay nolosha waxa kale oo ninka ku jecel lagu dareema sa u wada socotaan oo adinka isku mashquulaysan oo isku wacaysaan ayaa marka dambe waxaad la kulmaysaa arrin yaab leh inuu ka mashquulo hadhihin waa idin cadee qof kala hesha hadhihin calaamad bay tahay waxa uu tijaaminaya ninkaas uu kaaday degdeg Soomaalidu degdeg baa lagu imtixaamay degdeg ninkii baa hadhow eedanaysa waa iga mashquulsan bariyahan ma qof iga fiican baa heshay daldal ninka ku jecel ee doonaya inuu mustaqbal ka sameeyo ku guursado sida isku la socotaan oo mashquul aan u soo jirin oo ku soo wacayo adigu caysad oo xiriirkiinu yahay mid talantaaliya ayaa mar waxa ka war helaysa si degdeg ah inuu xiriirka goostayba uu mashquul adaa wacaya hawa mashquulsana hawlaha fiican way meelaas bariyaha ana iska xanuun meelaas iska jirtay hadhihin way iga bedel qaatay waxba tijaamin rabaa haweeneyda waxa kaliya xiriirka kaliya ina maanta soo wacday ma ka heshaa bas waxa uu ogaan rabaa ninka mustaqbal doonaya uga waday mashquulkiisa kaliya ku noqday waxa weeye akhlaaqdaada iyo shakhsiyadaada uu ogaado rabaa inuu ogaado muxuu ku ogaanaya imtixaano uu sameeyo marka qaarkood inuu saawa ku qaldan inuu ku dhaha laga yaabo isagoo wax rabay inuu ogaado taasna waa inaad ogaataa la rabo ninka ku jecel doonaya inuu ku guursado ehelkaadu ku weydiiya yani ibar sayyihiin ka warrama ayuu macna ehelkaadu ku weydiiya nin isqarniya ma ahan xaaladiisu caddahay way laakiin hadda in ehelkaadi dadka ka cararaya ogow adna kuma rabee laakiin been buu ku sheegay inuu wiilada ku raba haddana ehelkaay bari ogow taan la soco yani markaad ku islaada alla ninka waa macquul ehelkaada bardi sabarka qof markaas aragtaan ehelka ma bari kartid bilaa ku qasaarto laakiin macnaha waxa laga wadaa markaad isfahantaan oo islaada adigu waxba isbad ehelka ku bara hadduu diido waxba u laaban lugba u laaban marka qaarkood ninka ku jecel asaga ehelkiisu adiga kugu imtixaama tusaale kale wuxuu ku yiraahdaa walaashay wallahi waa xanuunsantahay maanta hada waa been aduu ku ogaan inuu ku ogaado raba bal sida u muujisid naxariis iyo inaad ehelkiisa jeceshahay hadaa tiraahdo wallahi ilaa dacafiyad ugu wada ka fogtaa wali hadaa tiraahdo allah heblaaya miya ila hore ku soo baray hore soo baratay heblaaya miya fulana heblaaya miya ila caafimaad wallahi gabar xanuunsan yani hadaad muujisid naxariis iyo xooga asaga inaad la tacaatufaysid وحليه والله إهل كذي ضد هذا الجعش لكن هذا ترى أو قرمة حنوصت أو كان حكون عاي رختم حلو جيم واي حنوكم حوها حنوكم حوها والله إله يا وسهل يعني إسكفضين واي معنا إسلافي وهذا كان نبأ هذا صعود ده موجود على زوايا مرة قال إهل كيسوقون امتحامة أما هو يدا يبقى حنوصل بكلية أما باهي أما ولا شيء أما ساس بحنوصل بل فعل كذي كائم هذا سوء بل أقياسه وحيه أقول نكاسه هو ونقطع نك كوتشعل صورة تقل معه إنه إسكان موجيو إنه إسكان دافيو إسكان كام يعني ده لقوم دقتره نك كوتشعل وقو أدقته بل إنه كعرر وكافو هذا وقو أدقته لكن هذا إسكان دقتره
marka qaarkood nimanka waxa jira qaarkood gabadhu markay ogaadaan inay jeceshahay way iska dhigatiraan way ismuujiyaan ogow qodobka insha Allah gooni ma u tilmaami doona laakiin waxyaala qaar ah shay tilmaam keeni kara inuu isku isla weyn yahay waa keeni kartaa inuu xushoonayo waa keeni kartaa daruufo kale waa keeni karaa laftirkeeda macnay miisaan gooni lama saari karo hal mar marka ninka si dhaba ku jecel guurkaada doonaya ma awoodo inuu iska ka dhaga tiro iska muujiyo ka cararo ku dhibsado ma awoodo inahaas waa qodobo muhiim ah asaasiya oo la rabo inaynu fahanno ogaano oo gabadha ninka guursanaya calaamadaha lagu garto kamida ilaahay haydan barakeeyo dhamaantiin allahana idan xafido